waxaan xasuustaa dhowr iyo 10 sano ka hor jamaaca magaalo ku baxday magaaladii markay ku baxeen dadkii way dhageysteen way la yaabeen waxay yiraahdeen war ininku dadkii wanaagsanaa ee masaajida amrayay baa tihiine dadka xaafadan degan ee salaada aanan tukan mid qaado jamaacada u geeya in odayaa yiri oday dariskayga oo 70 jir ah oo waligii salaad aan soo galin oo khamrigana aan habeen iyo maalin u kala saarin ayaa ila darisay hadduu igu kiin arkaano inila socdana dibba ay qabsane waa oday dib badane aqalkiisa sheedan iniga tilmaamiye hay soo sheegin aniga waaya wixii dhibaatay in soo gaadhana inka isgaarsiiyay marxaba albaabkii bay garaacay waa shantii galabnimo sabab hurdo ka soo kacay qorradii khamriguna miiska u dul taalo islaan male ilma male wa kaligi buu nool yahay dowr iyo 70 jir saaw qarqaray way ag fadhiisteen albaabkii markuu ka furay ina jamaaca nahay masaajidkan ka soo booqanay waa ku soo ziyaaranay ma ziyaarada waana qanay u kaadiyo buuri qolkiibu ku noqday lacag buu soo qaaday ziyaaradii wuxuu mooday qoladii tariiqadaha ee suufiyadu barigo reeraha waa ziyaaradii shaqabale keena orange imiko iska dhamaataan u malaynba ana xaqiiqa Djibouti imiko iska dhamaatay xaqiina mooyaan imiko ziyarada waxa isku badishay ilaahay dartii qofka loo ziyaaranaya oo waxa badishay ilaahay dartii baan ku soo booqano ku soo ziyaaranay waxa diyana kuma sidno waxa diyana kuma kaama doonayne khayrka jamaacada ka yar dhageysan wada dhageysanay markaasuu yaab wuxuu wardad lacag diida markay lacag ma qaadano wali inta noolahay waa qof lacag diida way ku weey maxaa tihiin ma annako adeer lacag ma qaadane laakiin waqtiga dadka ka qaadana waqtiga 20 milyan ma nasiin kartaa soo fariista wax lacag diida maana ba arkay buu la yaab bay ku noqotay mo khamrigan halkan ay taala jamaacada halkan iska fariisteen indhaha ka qabsadeen xayraad annako jamaacadu waxaan martiya magaalada Hiilayaan ka imanay dadka muslimiintan ziyaaranaynay ka bukaan u ducaynaynay ka dhibaataysan baan ogaanaynay dadka waaweyna waan soo buuqanaynay dhalinyaradana masaajidkan ugu yeedhaynay halkii hadalka markay uu furfurmay wax lacagna ma qaadataan ma qaadano oo lacagta ayaa inaga bixiya bil maali wa nafs bil maali naftaydi maalkayga ku soo baxnay ilaahay marka kala hadlan cadamadiisi aakhiradii noloshii dambe qabrigii qiyaamihii u fikray marka wuxuu hadalka adigu leedahay waligay ma maqal buuri waligay wax hadalka ila soo gala ma maqal buuri maxaad iga rabtaan adari sheeg lacag waad igu diideen wax kala sheegta waxa ka rabnaa anagu laba qof aan nahay amiirkii iyo jamaacadii odayaashii miskiidkay joogaan ina jamaacad u tagto waad soo salaantay bas intaas ka rabnaa ma intaas waa raaci darkii uu soo xidhay dhaladii khamriga halkii uu ka yimid quradii la socdo saadkii jamaacadu u soo raacay wuxuu salaad ma aqaan hal waxba male iska weysayso weysa ma aqaano kana ku ag fariisana sidoo sameeyo salaad ma aqaano kana ku ag tukane sidoo isagu u sujuudo rukuucan u rukuuc halka intii uu sameeyay ay linear iyo muuzir iyo shaahir bay markiiba u dhigeen maqribkii baa lagu eedaamayba dadkii xaafadu way daawanayaan odayga hebel baa maanta tabliiq miskiidka soo galiyay war tabliiq ma soo galin ilaahay baa soo galiyay